الله وبركاته أخيارتا كحران channelka سلام قاليان هودا إدين soo marnaya meel aad joogtaan wadaafaha caalamka salaamu ullaahi calaykum guuli barwaaqana waa idin rajaynayaa maasha allah maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii May 2021 insha Allah waxaan jeclaystay in aan idinla soo wadaago barnaamij ka duwan barnaamijkii hore aad iga barateen kulli waxaad hore iga barateen luqadda Carabiga inaan halkan idin soo dhigo oo runtii dad fara badan ay ku liibaaneen ay wax weyn anfacay oo aad iyo aad iigu soo moogtay bogaadiya aadna hambaliyada iyo ducada ii soo magaranaysaa dira laakiin maanta xoogay maasha Allah Allah ku anfacaan leh dadka kulli wax iga bartay ee iga faa'iideystay xagga luqadda Carabiga maantana barnaamij kale oo aan ka dhicin oo waxa weeyaan aad iyo aad idin anfacaya insha Allah ayaan idin wadaa oo waxa weeyaan ku saabsan ganacsiga ama waxa weeyaan barnaamijka business-yaasha looga shaqeeyo ama systemka software-rada laga shaqeeyo ganacsiga wax lagu iibiyo wax lagu magaranaysaa xisaab xidho waxa weeyaan barnaamijkeeda noocaasi ah runtiina dadkeenu ay aad iyo aad ugu baahan yihiin oo wali caalam hore laga tagay waayo hore laga tagay ay wali ku sii shaqeeyaan oo si manual ay ugu shaqeeyaan qaarna ay ku shaqeeyaan kombiyuutarradii oo waxa weeyaan Excel iyo barnaamijyo iska dhib badan oo sida QuickBook oo kale oo waxa weeyaan aad u buuq badan ay ku shaqeeyaan markaan arrimahaasi aan ogaadayna barnaamijkani in uu aad iyo aad u fudud yahay isticmaalkiisuna aad iyo aad u fiican yahay ayaan dareemay in aad loogu baahan yahay Soomaalidu ay aad iyo aad ugu baahan tahay dad waxa jira meheradahoogii iskaga dhiban oo waxa weeyaan xisaab xir haday noqoto haday wax iibin noqoto hadii ay deyntii laga qaatay noqoto hadii ay waxa weeyaan wixii income iyo outcome iyo waxa weeyaan hadii ay noqoto saleski ay sameeyeen iyo wax waliba marka runtii barnaamijkani waa barnaamij dhammaan waxa weeyaan kasoo hordhici maayo wax wal oo shaqo ay u baahan tahay ayaad ka heli kartaa wax wal oo ganacsi u baahan yahay ka heli kartaa wax walba oo service u baahan yahay baad ka heli kartaa hadii aad service qabato hadii aad waxa weey product aad iibiso hadii maxaa la yiraahdaa productgaagaasi hadii uu yahay wholesale aad ku iibiso ama retail aad tahay tafaariiq ama jumlad aad ku iibiso dhan walba macnaha uu ka anfacaya mid walba waxa weeyaan wixeedii oo dhameystiran oo waliba waxyaalo aan yacni maskaxdaada ku soo xaadiri karin ayaa xitaa aad ka heli kartaa oo waxa weeyaan aad ula tacajubi doonto markii insha Allah aad casharada aad waxa weey wada dhageysatay insha Allah runtiina waxaan rabaa inaan qodob u dul istaago barnaamijkaasi runtii waxa weeyaan wuxuu kaga fiican yahay systemyada kale oo yacni la taaban karo aad iyo aad u farbadan yahay laakiin hadii aan soo koobo tusaale ahaan wuxuu leeyahay telephone buu kugu shaqeynayaa desktop-kan uu kugu shaqeynaya macna computer-kan uu kugu shaqeynaya labadiiba waad ku shaqeysanaysaa waad isku xiranaysaa hadaa doonto mobile-kaaga jeebka aad iskaga sidatay wixii hawle adigoo gaari iska saaran ayaad halka hawshaadii ka wadaysaa runtii aad iyo aad dad fara badan aad bay ula tacajubaan markay arkaan oo isticmaalaya saadarteed insha Allah barnaamijkaasi waxyaalaha uu kaga duwan yahay taas horta iyadana kow ka oo desktop-kii iyo mobile-kii buu ku leeyahay hadii aad doonto mobile kaliya ka dhiganaysaa hadii aad doonto waxaad ka dhiganaysaa desktop aad ka dhiganaysaa hadaa doonto waad isku xiranaysaa saddexdiiba waxay kugu xiran tahay adiga iyo doorkaaga iyo sidii aad markaasi aad u iibsanayso iibkiisuna horta runtii barnaamijkan mid kale waa wax weeyaan waad iibsanaysaa ma ahin wax la haakargareynayo oo sida systemyo far badan hadda dadku ay ku shaqeeyaan waa la haakargareeyaa hack baa lagu sameeyaa sida barnaamijkan inta badan ee QuickBook inta badan dadku way haakargareeyaan kulli wax la haakargareeyana inuu xaraan yahay waad garan kartaa barnaamijkani waad iibsanaysaa lacagtiisuna wax badan ma ahin lacag badan ma ahin aad bay u jaban tahay waa tusaale ahaan mobile-ka waa $19 desktop-ka waxa weeyaan $50 oo wax yar dhiman hadii aad labadaba isku iibsanaysana waa $65 waana waxaan ka hadlayaa date-kooduna waa sanad macnaha lacagaha aan ku sheegay waa 1 year
3 sanaad iibsani kartaa iyadana oo qiimo gaar oo xoogay ka yar kororsan qiimaha hore ah for life baad iibsani kartaa oo iyaduna qiimo ka duwan qiimaha kale oo ka sareeya ah sidaas weeyaan sanad haddaad iibsato bisha aad iibsatay maalinteeda buu ka dhacayaa kadibna dib lacagtii baad bixinaysaa halkii bay kaaga sii soconaysaa daatadaadii iyo wixiina kaama halaabayaan qaabkii loo backup garaysanayay iyo wixii insha Allah cashiradan kulay aan ku dul istaagi doonaa hadii la yiraahdo qodob inaga oo insha Allah soo gaagaabinayna cashirada hadda kan waa iska hordhici insha Allah qaabka loola soo degay iyo sida loo create gareeyo ayaan idin tusayaa marka insha Allah barnaamijkaasi markaasi waa barnaamij aad u fudud oo wixii aad u baahnaydba hortaadan ayay ku yaaleen waxyaalihii loogu baahida badnaa hortaada yaaleen baynama imika QuickBook oo kale aan waan ku soo shaqeeyay waad wareegaysaa wareeg dheer buu kula galayaa wax yar oo fudud oo halkan inuu ku yaala ay ahayd ayaad intaas soo transaction baad sameynaysaa oo kanaad galaysaa ka kalaad sii galaysaa ka kalaad ka sii galaysaa halkaas aad ka tagaysaa wixii yar aad uga baahnayd kan uu kaga duwan yahay wixiiba ala shaasha screen kan hortaada ay ku yaalin oo way ku muuqataa waa taabanaysaa kaliya wixii markaasi aad u baahnayd hadii aad expense bixinayso hadii aad sales tagayso hadii ay payment aad sameynayso lacag ay ku waxa weeyaan la soo bixiyay aad xareynayso hadii aad waxa weeyaan sameynayso withdrawal hadii aad sameynayso hadii aad waxa weeyo purchase sameynayso wax soo iibsatay hadii aad everything waxa ku yaalaan shaashadan hortaada ayay kaaga muuqdaan meel aad u fogaanayso ama waxyaalo fara badan oo kale kulli ka hor dhici maayo ayuu leeyahay insha Allah waxaan sameynaynaa barnaamijka sida loo soo dejiyo ayaan hadda insha Allah idin tusayaa iyo sida shirkadda loo abuuro